بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa idinla hadlaya danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga, Jaamac Cabdullaahi Caydiid. maanta taariikhdu waa 3 bisha shanaad 2020 ama 3 bisha May 2020. waa maalin axad ah. fariintan waxaan u duubayaa dadka ku xaniban weli dalka Turkiga, dadka Soomaaliyeed ee doonaya inay ku noqdaan Muqdisho ama Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. kadib markii aan ogaanay ama ayna soo gaadheen cabashooyin badan oo diyaaradii hore aynu dirnay, dad ay ka tagtay, dad waqtiga ka gaari waayay, dad markaa aan diyaar ahayn, annagoo tixgelinayna duruufaha dadka haysta Turkiga ka haysta, maadaama biilashii iyo noloshiina ay ka xaniban tahay. waxaanu doonaynaa oo codkan aan usoo duubay in aanu dadka u baahan in ay noqdaan oo Muqdisho ku noqdaan. Muqdisho waxaan u leeyahay diyaaraduhu meel kale ma tegi karaan, Muqdisho unbay tegi karaan. dadka doonaya inay Muqdisho ku noqdaan waxaanu doonaynaa inaanu diiwaan gelino oo ogaano qof walba meeshu joogo, qofkii diyaar ah, hadduu tigidh haysto iyo hadduusan haysano hadha uu iibsan karo. waxaanu ka sameynay website-ka safaaradda Turkiga, safaaradeena Ankara inoogu taala, website-keeda internetka ay ku leedahay. waxaanu ka sameynay hal bog oo dadku iska diiwaan gelin karaan. bogga waxaan u bixinay bogga daadguraynta Soomaalida Turkiga ku xaniban. codkan aan duubayo ayaa lagu soo durqori doonaa website-ka ciwaankiisa, gruubadana waa lagu soo diri doonaa. waa ogeysiis weeye. website page-ku isaga isfasiri doona, qofku af Soomaali baa ku qoran. wuxuu iska diiwaan gelinayaa qofkii diyaar ah inuu Muqdisho ku noqdo, qofkii tigidh haysta baag ah oo Muqdisho ah ama iibsan kara. dee qofkii aan iibsan karin waa arrin kale arrintiisu. marka dadka halkan iska diiwaan gelinaya waa dadka iibsan kara tigidhka, ee awoodi kara inay noqdaan, hadhowna caafimaad mari kara marka diyaar la noqdo, diyaaraddu diyaar noqoto. sida ku cad markaad website-ka page-ka furtaan, qofka magaciisa oo dhammaystiran waa inuu geliyaa 3 magac ee baasaboorka siduu ugu qoran yahay. kadibna baasaboorkiisa nambarkiisa waa inuu geliyaa. kadib haddii uu page-ku wuxuu weydiin doonaa hadduu haysto iqaamad ama waxaan ay af Turkiga lagu yiraahdo kimlik. wuxuu dooranayaa kimlik oo isagaaba marka hore iska sii dooran. kadibna hoos wuxuu ku qorayaa kimligiisa nambarkiisa. hadduusan kimlig haysan oo uu fiisa ku yimina, fiisaha intuu doorto meesha kimliga intuu ka bedelo fiisa ayuu fiisa ka dhigayaa. kadibna fiisaha nambarkiisa ku qorayaa. kadib wuxuu qorayaa magaalada uu joogo, hadduu Ankara joogo, hadduu Istanbul joogo, hadduu Bursa joogo, hadduu meel kale joogo, magaaladuu joogo ku qorayaa. kadibna wuxuu qorayaa telephone nambarkiisa uu isticmaalayo, sababtoo isaga hadhow lagala soo xiriirayaa. kadibna wuxuu ku qorayaa emailkiisa. meesha ugu dambeysa waxaa ku qoran choose file. waxa weeye baasaboorkaaga farta cas meesha ku qoran tahay, badhanka ka hooseeya baasaboorkaagaad ku dirasaa. koobigiisa page-ka hore keliya ayaad ku soo dirasaa. kadibna submit ama send baad oranaysaa. waxaa badhanka ugu hooseeya ku qoran support ama help. haddaad ku dhufatid waxaa kuu soo baxaya 2 howlwadeen oo safaaradda ka tirsan, magacyadooda iyo whatsapp-yadooda. maadaama howlo kaloo safaaradda ay ku mashquulsan yihiin, wixii su-aal ah waxaad kusoo weydiin doontaan whatsapp ahaan. dadku haddii ay inoo gaadhaan tiro ku filan inaan diyaarad u qaban karno, safaaradda Soomaaliyeed waxay diyaar u tahay inay dadku markays diiwaan geliyaan. haddii tiro ku filan oo Turkish Airlines aan ku qancin karno ay gaadhaan, safaaradda Turkigu, safaaradeenu waxay diyaar u tahay
in Turkiga inoogu taalaa in ay abaabusho flight ama flight u baxa Muqdisho. su'aalaha marka dadku is weydiin karaan su'aalahaas waxaa ka mid ah diyaaraddu waa goorma dadku markiiba maskaxdooda kusoo dhici karta. diyaaradii weli diyaar ma aha, innagaa diyaarsanana. waxayna diyaarintaas ka bilaabmaysaa adigu inaad isdiiwaan gelisid. adigu markaa isdiiwaan gelisid oo dadku tiro aanu ku qanacno ama Turkish Airlines ku qanacda ay gaadho ayaa diyaaradda loo qalab qaadanayaa diyaarinteeda. waana laydin soo sheegayaa, waxaana laydin kala soo xiriirayaa telefoonada aad isku diiwaan gelisaan website-ka safaaradda hadda aan idin sharaxay. qof kasta telefonkiisa lagala soo hadlayaa. waxaa la isweydiin karaa tigidh ma sii goostaa? tigidh haddeer maba goosan karto, diyaaradda tigidhkeeda waa xidhan yahay. diyaaraddu markay ina ogolaato ee aynu la heshiino unbay fursad ina siin doontaa aynu tigidh ku goosano. marka qofkii haystaana ha haysto, hadhow buu bedelan doonaa. qofkii aan haysanna ha u diyaar garoobo oo hadhowsan karkaba ku noqonin marka la furo tigidhadeeda in la iibsado. marka usii diyaar garoobo, hadda tigidh ma furna. caafimaadka ma sii maraa? annaga waxaan ku dadaalanaa annagoo cashar ka barana diyaaradii hore inaanu waqti siino dadku ay caafimaadka ku maraan. sababtoo hadda haddii aan idhaahno caafimaad mara ma garan doono waqtigay noqon doonto, hadday 2 asbuuc kadib noqon doonto, hadday asbuuc kadib noqon doonto. marka caafimaadka aad maanta martay hadhow ma lagaa yeelayaa inaad ku dhooftid? marka taasna waxaan ku talinaynaa, kolle waxaan ku dadaalanaa inaan hadhow waqti idin siino. reportkayga sidaan maalinta hore usoo diray WhatsApp ma kusoo diri karaa, email ma kusoo diri karaa, tigidhka ma soo dira? maya. waxaa haddeer lagaa rabaa oo keliya page-ka keliya inaad iska diiwaan gelisid. macluumaadka lagugu weydiinaya page-ka keliya unbaa iminka lagu weydiiyey. haddii aad website qof kale WhatsApp-kiisa ku dirtid ama safiir ha ahaado ama safaaradda ha ka shaqeeyo aad qof aad garanaysid, ogow ismaa diiwaan geline. waan ku soo celinayaa, waxba meel kale ha ku mashquulin. waxaad samaysaa website-ka iska diiwaan geli keliya. telefonkaagana message baa kuu soo dhici doona email ah oo ah in aad isdiiwaan gelisay, laguna la soo xidhiidhi doono. marka waxba ha isku dhibin. dadku badanaa waxay sameeyaan dad kale oo safaaradda ka shaqeeya garanayaan bay u dirayaan macluumaadkoodii, baasaboorkoodii, waxay hayeen. taasi markaa isdiiwaan gelin maaha. waxaa isdiiwaan gelin ah inaad website-ka iska diiwaan gelisid. waan ogahay dad badan baa guruubo isugu xidhxidhan. marka dadkaana waxaan ka codsanayaa inay iscaawiyaan oo ay website-ka qof isaga diiwaan geliyaan. waxaan idiin rajeynayaa in aad fahamteen fariintayda. wixii isdiiwaangelinta markay dhammaatana ama aan ogaano waqtigay doontaba ha noqotee inay tiro ku filan ay isdiiwaan gelisay, markaa annaga idinla soo xidhiidhana, waynu iska warqaadananaa. qof kastana waxaanu kala soo xidhiidhi doonaa telefonka uu isku diiwaan geliyay. telefonka ha iska khaldin. telefonka adigu aad haysatid iska diiwaan geli. hadduu doono telefon WhatsApp ah oo Soomaaliya ama meel kale ha noqdo, isaga ayaa lagala soo xidhiidhayaa.